kamida madax dhaqameedka waxgaradkii odayaasha gobolka Sanaag oo maanta kulan degdeg ah ku yeeshay buurta Daalo ee gobolkaasi ayaa komishanka doorashooyinka Soomaaliland ugu baaqay inaanay aqbalaynin wax kasta oo aan sharciga waafaqsanayn oo ka soo baxa komishankaasi. Sidoo kalena waxay madax dhaqameedkani ku baaqeen in komishanku ka fiirsadaan sanaadiiq ay sheegeen inay si sharci darro ah waraaqaha codaynta loogu codeeyay, iyagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kalena waxay yiraahdeen sanaaduqda foojariga ee la tilmaamay inay foojari yihiin ee ilaa xalay la isku haystay marnaba natiijada ka soo baxda ma aqbali doon. shir degdeg ah baan ku baaqaynaa inay isugu yimaadaan. baaqa u horeeya waxaan u direynaa komishanka iyo madaxweynaha dalka Soomaaliland. baaqa aan u direynaa wuxuu ku salaysan yahay komishan waxaynu galay doorashadaas waxay ahayd mid sharci leh. waxaanu ku salaynay sharcigii doorashada idinkana laydinku dhaariyay. haddii sharcigii doorashada idinkana laydinku dhaariyay annaguna aanu ku soo shaqaynay wax isbedeli ku yimaadaan, baaqayagu wuxuu ku salaysan yahay inaan qaadan doonin. haddii uu doorashadu sharci ku salaysan tahay waa qaadanaynaa. maadaama maanta ay soo baxayso in boob iyo xoog iyo ku shubasho ay ka dhacday oo doorashadii xalaashii iyo laga kaxeeyay, waxaan baaq u diraynaa komishanka qaranka oo gacantooda ay ku jirto maanta amnigii iyo dhisitaankii iyo jiritaankii Soomaaliland. haddii taa la waayo oo xaq la waayo, xaq soor la waayo, waa nimcada Hargeysa taala u tudha yey dhicin mana qaadan doono hadday dhacdo. waxay komishanka waa dhaarteen baa marteen dalkani wixii runa ku burburi maayo, laakiin beenta ku burburay si loo sheegay been waa ku burburaya. sharci darro waa sharci darro. wax kasta oo sharci cid aqbali karaysa ma jirto. haddii doorashadaas ay u dhici weydo sida sax ah xaq ay u dhici weydo, ma dhici doonto in ay sharci darro dalkan iyo dalkan kuma dhici doono. marnaba lamana aqbali doono. komishanka doorashada waxaan leenahay labay taagan tahay. dalkan inay horseedaan burburkiisa, inay horseedaan maslaxadiisa, inay horseedaan isagoo sharciga ka hor imanaya. wax kasta oo dastuurka ka hor imanaya marnaba aqbali mayno, mana yeelayno, mana aqbalayno. Cabdiraxmaan Axmed, Star TV, magaalada Ceerga.